بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هو اللي بان عبد الكريم شيخ عمر شيخ أحمد فره كان مدأه حبين كان مدأ قولها قورتي ده لجمهورية الصوماليلاند. waxaan maanta halkan xog waran buuxa oo dhamaystiran ka siinaya saxaafadda oo ku soo beegay maalin sabti ah oo runtii goluhu fasax galay sabtidan maanta ilaa sabtida soo socota 7 cisho fasaxa taana ay sabab u tahay xubnihii golaha guud ahaan oo safar kala duwan u baxay xubnihii ugu horeeyay guddigii ugu horeeyay oo u baxay laascaanood shaqaaqadii ka dhacday berigii dhaweyto oo dhowr iyo 10 xubnood ahaa waxa ka dambeeyay khamiistii oo ay baxeen laba maxaan ku radaa qaybood oo kamida xubno kamida golaha guurtida ilaa dhowr ilaa 10 xubnood baa hadda saa ku maqan oo baxay saa daraadeed goluhu laga bilaabo maanta oo sabtiya inteedii hadhay ilaa sabtida fasax ayaanu galnay shaqada ay gudanayaan waa shaqo qaran waa shaqo waxa weey waa hawlihii loo igmaday golaha guurtida xubnaha golaha guurtida ee u kala gooshay ama waxa weey u kala baxay gobolada dalka iyagoo soo indhaynaya xaaladda dalka guud ahaan iyo gaar ahaanba iyo bulshada saadiradeed waxaan halkan ilaahay uga baryayaa xubnaha golaha guurtida ee faraha badan ee u baxay shaqooyinka waxa weey maxaan ku radaa caadiga ah in ilaahay ku soo guuleeyo hadafkooda iyo himiladooda iyo hawsha ay u baxeen wacyigelinta ummadda iyo indhaynta xaaladda dalkana in ilaahay ugu soo afjaro iyagoo nabad qaba insha Allah billahi kariim taa intaasan kaga baxay haddaan soo noqdo xog warankayga gaarka ah ee doonayay aan kaga hadlo xaaladda dalka guud ahaan gaar ahaan waxa weey wadanka maalmahan runtii waxa jira alxamdulillah horta waxa weey alxamdulillah xaalad kasta lagu jiro waxa loo baahan yahay ilaahay lagu shukriyo nimcooyinkii ilaahay way nagu gadaaman yihiin ilaahay hay naga dhigo kuwii arka kuna shukriya amnigii way noo fiican yahay alxamdulillah xamda kasiira walow ay jiraan dhacdooyin soo noqnoqonay runtii aan loo baahnayn waqtigan xaadirka ah marnaba aan loo baahnayn dalkeena iyo dadkeenaba inuu dhiigdaato si maalayacniya anigoo qodobka soo horreysiinaya maadaama aan nahay golaha guurtida wuxuu ku suntan yahay 3 qodob oo ugu muhiimsan 3 qodob oo ah amniga diinta iyo dhaqanka marka waxaan leeyahay horta walaalaha bariga oo shaqaaqooyinku ay dhowr jeer soo noqnoqdeen baaq waxaan maanta halkan uga jeedinayaa horena aan u jeediyaa haatan aan u jeedinayaa mar walbana aan jeedinayaa insha Allah billahi kariim nabad waa qaali Soomaalidu waxay tiraahdaa colaadu waa mugdi irga u maciina nabad baa saka macaanikiisa ku dhinta waxba ugu ma filan ummadda muslimiinta ee walaalaha ehelka ee qoyska ah ee jiiraanka ee wada dhashay ee waxyaabaha maalayacniga ee fitanka isku dilay waxaan leeyahay ka aqli ka yeesha adduunyadu ma meel la joogay meel lagu waarayo maaha waa meel laga tagayo xisaabna way dambaysaa saadiradeed waxaan leeyahay aqligu ha shaqeeyo fitnada iyo dilka iyo maxaan ku radaa ha laga baxo ilaahay ha loo noqdo ha la tooba keeno intii dhimatay Allah u naxariiso inta nool la ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay inuu ka dhex qaado naxliga iyo dhibka dhex yaala daalimkana uu ka qabto daalim baa isku diray ummadda taa haddaan ka soo gudbo marxaladda wadanka guud ahaan siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda haddii aan wax yar ka soo qaato siyaasadda arrimaha gudaha runtii wadankeenu aad bay u fiican tahay alxamdulillah amnigu wuu fiican yahay horumarka iyo waxa weey kulli talaabooyinka dawladda cusub ee hadda sanadka jirta ay qaaday waxa weey macnaha sidii loogu talagalay bay u socotaa insha Allah dardargelintuna waa muhiim oo kulli deyn la dhiiri galiyana waa muhiim inta dal badan xukuumaddu waxa weey ay haddana sii sameeyso oo halka ay taagan tahay ay ka sii waxa weey maxaan ku radaa talaabo horle ay ka sii qaado iyadoo ummadda la walaaleynayo waxaan baaq si guud ahaaneed ummadda reer Soomaaliland meel kasta joogan u jeedinaya in laga shaqeeyo mar walba wanaaga wada isjeclaanshaha wada jirka ummadda isu tanaasulka isu dulqaadka waliba gaar ahaan waxaan tixyar halkan uga soo jeedinayaa dadka inta badan isku qaldama ee dulqaadku ku yar yahay dadkaas oo runtii ay dhibaatooyin dhex maraan waa bariga Soomaaliland oo dhowr meelood waxaan dadka leeyahay waayeelka kalmadayn ama laba kalmadood oo aan ugu talagalay bal dulqaadku qiimaha uu leeyahay haddii la isu dulqaato in la kala badbaadayo oo wanaag jirayo tixyaro marka aan ka tiriyay in yaro kooban ka soo qaadanaya waxaan ugu baaqayaa tixda yar dulqaadka anigoo leh dulqaad waa darajo qaaliyo diinteenan ka daalacay rabbi deeqdiisa badan bay ku dahaaran tahay gardarrada dhalaan daayir bay bahwadaagihiin garashiyo qofkii aqligiisu taam noqdaa dulqaad laga rabaa dadnimo wanaag dhasho daacad baa hagtee damiirkoo fayo iyo dareen isku wada duuban dulqaad baa lagu helaa deeq ilaahay weeye ummad yahay dulqaadku waa aad buu fiican yahay laba qof oo walaalo ah ayaa laga yaabaa mid kamid inuu waxoogaa waxa weey daniyo walaalkii
isagoo wax caddayn aan ku hayn dannigaas waa dembi inna bacda danni ism dannigu waa dembi marka adiga oo walaalka in yar oo kugu qaldamay aad u dulqaadan weyday waxay keenaysaa isku dhac iyo dhibaato iyo dhiig daata ummadda waxaan leeyahay la isu dulqaato war dulqaadka la ogaado waa darajo aad u weyn geesiga nabigu markuu ramay sallallahu alayhi wasallam ninka ugu geesay rag miya taqaanaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabada rasuulku waxay dhaawaan ninka dhinaciisa dhulka la dhigin maydaan garan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waa ninka isqaban kara marka laga xanaajiyo ama marxaladu xanaaqsan yahay ninku marka ay ku sugan yahay waa ninka isqaban kara ka joogsan kara ficiliya maxaan ku radaa qowl ku hadlaa saadaradeed dulqaadku waa raganimo halkii ugu sareysay weey ummadda waxaan leeyahay la isu dulqaato la isu tanaasulo walaala leeyahay ehel baa leeyahay jiraan baa leeyahay qoys baynu nahay ummad wada dhalatay baynu nahay wanaagaan ka shaqeyno nabadaan ka shaqeyno amnigaan ka shaqeyno ubadka iyo ay tiinkooda mustaqbalka aan uga tagno wax dhaxal gala oo ay ku hirtaan bari ka maalin hadba wixii ay waayeel ka arkaan iyo ummadda ka horeysay ayuunbay ubadkuna ku dhaqmaan marka waxaan leeyahay guud ahaan iyo gaar ahaanba ummadeenna aan diinteena islaamka ku dhaqanno diinteena islaamka waa diin kaamil oo dhammaystiran insha allah bidnillaahi kariim ilaahay waxaan ka baryayaa bashbash iyo barwaaqo meel kastoo in joognaba insha allah dibad iyo dalba ummadda reer Soomaaliland iskaashi wada jir iyo walaalnimo taama